السلام عليكم. garoon diyaaradeedka nugu weyn caalamka oo dhan maadaama aan kanaalkeena uga hadalno waxyaabaha la xiriira horumarka waxaan mowduucan uga hadlaynaa furitaanka gegada diyaaradaha cusub ee Turkiga magaalada Istanbul qaybteeda Yurub. muxuu arrinkan Turkiga uga dhigan yahay? maalintii Isniintii shalay Turkiga waxay u ahayd maalin ay xusuusnaan doonaan shacabka Turkiga. waa maalintii la furay madaarkii ugu weynaa caalamka oo dhan. wajiga dhaqaale ee Turkiga ayaa gebi ahaanba isbedeli doona. arrinkan oo ka dhigaya Turkiga mid halbowle u noqon doona duulimadyada caalamka kala duwan. Fuad Aqtay oo ah ku-xigeenka Erdogan ayaa yiri furitaanka gegada cusub ee Istanbul waa mid ka mid ah garoomada ugu muhiimsan ee isu gudbinta dadka iyo badeecada caalamka oo dhan. garoonkan sanadkii waxaa ka gudbi doona 200 milyan oo qof oo u kala socdo daafaha dunida iyo kumanaan tan oo badeeca. waxaa xusid mudan in garoonka qayb ka mid ah weli ay dhismo ku socoto. xaqaa'iqda ku saabsan mashruucan waxay muujinaysaa in garoonkan yahay mashruuc aad u weyn. dhulka uu ka dhisan yahay garoonka wuxuu gaarayaa 76.5 milyan mitir iskuweera wuxuuna qaadi karaa sanadkii sidaan sheegnay 200 milyan oo qof. qiimaha ku baxay dhisidda mashruuca waa 26 bilyan lacagta yuurooda. furitaankiisa waxaa ka soo qayb galay madax badan oo kala duwan oo ka imaaday daafaha dunida. mashruucan waxaa ka dhalanaya kumanaan shaqo. dhisidda mashruucan waxaa ka qayb qaatay 3,000 oo ah aaladaha wax dhisa ee waaweyn, 10,000 oo shaqaalaha oo si joogta 24 saac isu beddelayay, ragga dhismaha dejiyo oo gaarayo 250 qof iyo 500 oo injineer. garoonku wuxuu awoodaa in ay fariistaan 500 oo diyaaradood hal mar. sidoo kale wuxuu qaadi karaa 70,000 oo gaari. halkii maalin gudaheed waxaa ka soo degi doona kana duuli doona 1,000 diyaaradood. garoonku wuxuu ka qayb qaadan doonaa koritaanka dhaqaalaha Turkiga. garoonkan 4.9% ayuu ka qayb qaadan doonaa dhaqaalaha Turkiga, waana nambar aad u weyn markii loo fiiriyo hal mashruuc. garoonku wuxuu magaalada Istanbul ka dhigi doonaa xarun muhiima isu gudbidda caalamka wadooyinka dhinaca hawada sare ee tahan New York ilaa Shanghai, wuxuuna isku xiri doonaa bari iyo galbeed. garoonku wuxuu Turkiga ku soo kordhinayaa ku dhawaad 300,000 oo shaqo si toos ah iyo 1,500,000 oo shaqo si aanan toos ahayn.